Assalaamu calaykum. Waan idin salaamay dhammaan walaalaha ku xiran channelka. Waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qaar ka mid ah meelaha ugu fudud ee laga helo farxadda. Waxaana aan ka soo akhriyay kitaab la yiraahdo Laa Taxsan ama Hamurugoni. Iimaanka iyo camalka wanaagsan labadaas ayaa ah sirta nolosha macaan ee dhadhanka leh. Waxaad ku dadaashaa barashada cilmiga iyo raadinta aqoonta iyo macrifada. Waxaadna joogtaysaa akhriska, waayo wuxuu tagsiiyaa murugada, wuxuuna maanka ka buuxiyaa afkaar iyo arrimo waxtar leh. Waxaad cusboonaysiisaa toobadkeenka, waayo waxay iftiimisaa oo qurxisaa nolosha. Waxaadna ka haajirtaa isagana tagtaa macaasida iyo camallada xunxun, waayo waxay ciriiri geliyaan irsaaqada iyo iridihii ay kaa soo geli lahayd farxaddu. Waxaad akhrisaa kuna tadaburtaa qur'aanka, waxaadna badisaa xuska iyo sheegidda Allah mar walba. Dadka wanaaji, waxaadna ula dhaqantaa sida ugu wanaagsan, waayo waxaa laga helaa laabxaarni iyo qalbi fiyoobaan. Waxaad noqotaa geesi aan ka cabsan waxa uu xaqa u leeyahay, naftiisana qiimeeya, qawi ah oo aan jiljilcanayn si aan loogu xadgudbin. Ka daahira qalbigaaga xasadka, xiqdiga, nacaybka iyo cuqdada, waayo waxa ay liidaan shakhsiyadda, waxa ayna kuu keenaan dib u dhac, shalay iyo murugo oo keliya. Ku noolow maalintaada, diiradana saar inaad ka faa'iidaysato daqiiqad walba oo aad maalintii hesho. Iskana ilow tagtada iyo timaadada, waayo tan hore waa ay la tagta wixii ay shar iyo khayrba wadatay, tan dambana gacantaada kuma jirto. Sidaas darteed maaray una tali maantay, waayo iyada ayaad maamulkeeda haysaa. Waxaad fiirisaa qofka adiga kaa hooseeya, muuq ahaan, maal ahaan iyo caafimaad ahaanba, si aad u ogaatid nimcada aad haysato. Isagana si wanaagsan ula dhaqan, kuna caawi wixii aad awoodid. Hadal wanaagsan oo qalbigiisa farxad ku beeraba ha noqdee. Howlahaada qabso isla waqti xaadirkaas, hana u dibdhigan berri wax aad maantaba qaban karto. Sabir, u dulqaado, dadkana iska cafi, waxaadna qarisaa caradaada, waayo kuwaas ayaa ah kuwa waa la weyne jecel yahay. Cidnaha ka sugin abaalmarin, wixii wanaag ah ee aad samayso ka xisaabsa ajirkeeda Allah, isaga ayaa kaa abaalmarin doona. Ka fikir waxa uu Alle ku siiyo oo nimco ah, kuna qanac waxa uu Allah qaybta kuu siiyo oo maal ah, caafimaad ah, ehel ah ama shaqo ah. Waxaad abuurataa mashruuc nacfi leh oo adiga kuu qaas ah, kuna mashquul isaga si aad ugu ilowdo murugooyinkaaga. Waxaad isbarbar dhigtaa nimcooyinka aad haysato iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee aad soo xallisay, si aad u ogaato in faa'iidadu ka badan tahay khasaaraha. Mahadsanidin.